ururka saxaafadda Somaliland ee Soldier oo maalmihii ugu dambeeyay ku jiray tartanka hoggaanka sare ee ururka ayaa maanta doortay hoggaanka ururkaasi iyagoo gudoomiyaha ururkaasi loo doortay Shaafici Maxamed Artan gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Axmed Khalid Faarax iyo sidoo kale xogayaha guud ee ururka Muuno Ibraahim Dhakhtar ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay gudidii ku meel gaadhka ahayd ee hagaysay shirka muddadii kala guurka ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier toban xubnood oo kamid ah guddiga fulinta oo fadhigan ka soo qayb galay markaan cod u qaadnay 9 xubnood oo kamid ah waxay isku raaceen inuu gudoomiye noqdo gudoomiye Shaafici 9 xubnood oo kamid ah waxay isku raaceen inuu gudoomiye ku-xigeen noqdo Ahmed xogayaha guud waxaa la isku raacay Muuno Dhakhtar ee 9 xubnood ay u codeeyeen sidaasna waxaan filayaa inay ansax ku tahay oo aynu ku samaynay oo aynu ku dhisnay hoggaankii cusba ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier waa shaqo aad u sensitive ah waxa la idinka baahan yahay inaad saxaafadda Somaliland ururisaan inaad bulshada saxaafadda ka dhigtaan tii wax u qabata ee aanay noqon tii iyadoo laga cawdo maalintii dhaweydaynu shirka isugu nimid xeerar baa laga hadlay marxalado badan baa laga hadlay hawlo badan baa runtii noo yaala halkan duco badan baan idinka soo jeedinaya ilaahay xilka idinku asturo ururada dimuqraadiga ee ay Soldier ka mid tahay markasta oo loo tartamayo waa la isriixaa waa la isgarbiyaa shirkeeni 31 ka dhacay hotelka Ambassador marxaladu soo maray 12 oo rubuclu inoo furmay halkii ay ahayd inuu inoo furmo ugu dambeyn 9 haddana bartankii waad arkaysaan haddana culays kale ayna galay xilligii aynu ku guuleysanay inaynu 15 xubnood soo saarnaa 9 iyo barkii habeenimo iyadoo sanad cusub la gelayo oo hoteelku busy yahay oo dad badan ay ma garanaysaa maalinta hoteelada habeenka aad buu camirnaayeen haddana buuqeeni hoteelku waa kii xajin kari waayay ee wixii ka dhacay noogin wanagii markaa shirka dib isaga dhignay waxba taasi xanaf ma leh rag way isriixayaa waana la kala baxayaa dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier Zakariya Axmed Maxamed iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda maxalliga ee Sonsaf Awar Cabdiraxmaan Dol waxaan idin rajaynayaa inaad noqotaan board isku duuban oo shaqada la idin soo igmaday ee la idin doortay sideeda u qabtaan gudoomiyahana mid baa u taala waxa u taala mas'uuliyad ka duwan xubnaha kale oo ah isku haynta iyo keenista xubnaha maanta halka maqan waa dimuqraadiyad waa la kala aragti duwanaanayaa waa la isdhexdhexayaa waa la isjiijiidayaa way kulayl badan tahay way dhibaato badan tahay laakiin waxa weeye waxa la isugu yimaadaa biyo meel gudub isugu shubaaneen hamigii iyo ujeedadii la idin soo doortay oo ah in aad Soldier tiimka hogaaminaya 3 sanadood ee soo socda noqotaan mas'uuliyadda weyn ee idin hor taalana aad u midowdaan marka gudoomiye insha Allah hawshaana wad qaban doontaan xubnaha kalena way kula qaban doonaan annaguna oo anigu aan ku kaahayna maanta laga bilaabo waxaan ku biirnay odayaashii Soldier ee mustaqbalkii oo halka dambe idin fadhinaa ee 31 bishii December ee soo dhaafnay runtii farxad weyn bay tahay waxa kale oo farxad weyn in intii aan ogaay ama ku soo dhex jiray civil society-ga in doorashadii ugu dimuqraadiyadeed ay maanta Soldier dhexdeeda ka dhacday waayo labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaan arkay campaign iyo olole iyo hadii aan laba ku roon yahay dhaqdhaqaaq fara badan oo la doonayo in shirmuha hadii aan laba ku rooyo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay xogayaha guud ee ururka saxaafadda Somaliland ee Soldier Muuno Ibraahim Dhakhtar gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Axmed Khalid Faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier Shaafici Maxamed Artan farxad weyn bay tahay maanta 20 sano oo Soldier jirtay
labaatankaa sano oo aanay gabadhi soo gaadhin saddexda sare hoggaanka laakiin ay soo gaadheen xubno ka mid ahaa dadka xubnahaasi oo saddexda imika sii dhammaynayay ka mid ahaa saddexdii sanee dambena aan ku soo noqday balse aan u ogaado maxaa gabadha hor yaalla caqabadda hor taalla maxay tahay u soo gaari laadahay hoggaanka sare qodxo badan iyo xafiltan badan iyo hawlo badan oo ay leedahay doorasho kastoo la gelayo maha wax saleela ah loo galo waxaan aaminsanahay in wax waliba uu leeyahay dhib laakiin dheefi ay ka dambayso guul iyo guul darrabana loo joogo aad iyo aad ayuu dareenkaygu uu fiican yahay Aasiya iyo telefishinka qaranka Somaliland ilaahay baa mahad leh dadaal dheer iyo sidoo kale juhdi dheer oo muddo badan ba socday oo dhinacyo badan lahaa oo ergooyin lahaa oo shir guddoon lahaa oo cid walba lahaa in ugu dambeyn maanta aanu noqonay mas-uuliyiinta hogaamin doona ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja saddexda sano ee soo socda waa mas-uuliyaddina culeyskeeda ay leedahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nagu asturo anigoo ku hadlaya afka boorka cusub ee 31 December la doortay 31 December la doortay waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ergadii kala duwaneed ee ka kala timi gobolada iyo degmooyinka Somaliland iyo waliba xubnihii nagu aaminay inaanu maanta noqono hoggaanka cusub ee ururka saxafiyiinta Somaliland inta marka laga yimaado xaalado badan way iska jiraan waxaan sidii ballan qaadaynaa aniga iyo boorkuba inaan ku wada shaqeyno annagoo mid ah annagoo wada jirna annagoo yool leh hadafkeyguna uu cad yahay arrimaha khilaafku waa iska iman doonaan laakiin khilaafkaasi ma noqon doono mid dibadda u soo baxa midna kala qaybiya midna kala fogeeya wuxuu noqon doonaa mid miiska gudihiisa ah oo miiska ayaa lagu kala adkaan doonaa miiska ayaa lagu ganacsan doonaa miiska ayaa lagu heshiin doonaa Abdulqaadir Sako warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.